الرحيم dhammaan asxaabta Soomaaliyeed oo salaamaya ku xiran channelka tamaam waxa maanta sharaf iyo aan barta soo fadhiisto aan ka hadlo waxaan u baahanahay iyo wax u baahan yihiin walaashii iyo walaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan doonayaa maanta mowduuca ay ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed waynu ognahay Soomaaliya inuu yahay wadan faqiir ah laakiinse wadamada caalamka ay ku tiriyaan wadan faqiir ah laakiinse waxaan aaminsanahay aniga iyo qayb naga mid ah dhalinyarada iyo asxaabteedaba inuu Soomaaliya yahay wadanka ugu qanisan caalamka wadanka ugu wanaagsan caalamka wadanka ugu quruxda badan caalamka waxaynu nahay isku dhaqan waxaynu nahay isku midab waxaynu nahay isku diin waxaynu nahay isku mansab waxaynu nahay wax badan baynu wadanahay wax badan baynu wadaagnaa ilaahay bayna wada abuuray marka waxaan doonayaa Soomaaliya in ay noqoto wadamada ugu qanisan maanta barta waxa ay soo fadhiisiyay waxa aniga igu weyn aan doonayaa inaan dhalinyarada u gudbiyo aan travel uga dhigo marka maanta waxaan doonayaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed u sheego laba qodob aan uga sheego waxay tahay wadankiina ciidan ininka hayn ma dhisan karto dhalinyarada waxaan doonayaa inaad wadankiina dhisataan idinkoo wadankiina daacad u ah dalkiina daacad u ah wadankiina anfacaya marka maanta waxaan doonayaa inaan idin sheego laba qodob labada qodob waxay kala yihiin waxaad tihiin dhalinyaro waxaad joogtaan qarnigii 11aad waxaad ku qaar inaga mid ah dhalinyarada waxay jecel yihiin inay wadamo kale ay u dhoofaan oo hebel baa soo degay caashaa soo degtay marka ay doorato inanka u qurux badan inta markay soo degtay noqoto qurbo joog inanka u qurux badan doorato wiilkuna wuxuu doonayaa markuu soo dego inanta u qurux badan uu guursado marka wallahi in saraf iyo mansab iyo qurxiis ku jirin waxaan aaminsanahay hadaad wadan kale u dhooftid inaad wallahi dadka duqda ama dadka teamkooda dhamaado inaad futada u meedhisid oo aad waxa masaxis marka waxaan doonayaa bilaa calaykum wadankiina wax ka sharaf badan oo waxa qur'aad wadana qurux ku tiin Soomaaliya jirta haddaan aan jeclahay ummadda Soomaaliyeed marka waxaan doonayaa siiba khaasatan dhalinyarada waxaa lagu jiraa qarnigii 11aad aad aqoon la'aan meel la gaari karin marka waxaan doonayaa walaal iyo walaashay inaad wax barataan wadankiina faacdaan diintiina aad horumarisaan marka waxaan doonayaa inaan idin sheego hal qodob wuxuu yahay waxaad haystaan waqti wanaagsan waxaan idin dhalatay dawlad wanaagsan waxaan aaminsanahay dhalinyaro badan oo wadanka ka tagtay oo wadamo kale ku weynaaday kadib dhaqaale galiyay oo wadan horumariyay haddaan farsaab u soo qaato wadanka Kenya qayb la dhaho xaafada Isliin waxaa degan Soomaali maanta Soomaalida ku nool Kenya haday soo degi lahayd caasimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay noqon lahayd caasimada ugu qurux badan Afrika inta la gaarin wadamada kale reer galbeedka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay noqon lahayd caasimada ugu qurux badan laakiinse mar bay noqotay nasiib darro dawladii baa burburtay marka waxaan doonayaa inaan idin sheego dhalinyaro wadankiina wax inaga qurux badan ma jirto wadankiina sharaf ku leedihiin wadankiina marka waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay masab iyo sharaf ku leeyihiin wadankooda marka waxaan doonayaa inay wadankooda dhistaan wadankooda anfacaan maanta waxa barta soo fariisiyay anigoo aan ku noolahay Soomaaliya aan wadankayga meel loogu dhaafin aan jeclahay inaan wadankayga kala barto aan jeclahay wadankayga inaan u kala dhaafo dhexdiisa anigoona marraba ku hamiin inaan wadan kale aado sida reer Yurub sida ay Afrikada dhexe anigoona marnaba aan taageersan laakiin waxaan jeclahay inaan wadankayga dhexdiisa ku dhoofo wadankayga ma kala qaani isteedadiisa ma kala qaani goboladiisa laakiin waxaan doonayaa inaan kala barto ma sha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa wadankiina barta marka gobol ku dhalatid gobolka ku xigaro gobolka kala garo wadankaaga adiga mooyaan cid kale oo sharaf iyo masab ku yeelan kartaa ma jirto marka waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay wadankooda dhistaan hal mid kale ku darsanaya waxay tahay intaasna waxay tahay teamka inaad ilaashataan waqtigiina aad ka faa'iideystaan intaad dhigeysan lahaydeen heeso iyo music iyo xaraawe iyo show iyo hebel baa Facebook wax soo dhigay iyo caasha maanta hebel siyaasi baa waxa sameeyay wala qurux badan wallahi wala qurux badan inkastoo doonayaan siyaasiyiinta wadanka maamula hadda xilka hayay ugu wanaagsan yihiin ay doonayaan wadankooda inay horumar gaarsiiyaan cidda horumar la gaarsiin kara wadankiina wallahi waa ninka wallahi waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaad waqtigiina ilaashataan marka waxaan rabaa inaad waqtigiina ka faa'iideystaan aadan ugu faa'iideystaan sida positive sida ugu wanaagsan
sidaad wadankiinan u dhaqaale gelin lahaydeen wadankiina u dhisi lahaydeen wadankiina horumar u gaarsiin lahaydeen wadankiina qaaradda Afrika ugu soo dhex saari lahaydeen ay noqon lahayd xigta ugu qurux badan Afrika marka waxaan doonayaa hal qodob kaliya ay haya waxaan rabaa kan aan soo dhigi doono haddan inaad comment badan ka soo bixisaan wadankiina saad u dhisan lahaydeen dhaqaalihiisa u bixin lahaydeen aad ninka garaysaan marka walaal iyo walaashay waxaan inagu dhiirigelinayaa wallahi waniga dhartay wadankiina cid kale waxa Soomaalidu waxay ku maamahdaa marka waxa Soomaalidu ku maamahdaa ceelna kuma qodna cidna kuma maqna marka cidda wadanka u maqan waa ninka cidda doonaysa wadanka inay dhistaan waa ninka cidda doonaysa wadanka inay sharaf iyo masab iyo qurux u yeelaan waa ninka marka walaalayaal anigu maanta waxa dareen baa yahay dareenkiina waniga inii soo gudbiyay marka waxaan doonayaa inaad ila garab gashaan sad wadankiina u dhisan lahaydeen ma aha inaan YouTube soo fariisto inaan Facebook soo dhigo anigoo doonay inaan wadankayga dhisto laakiin waxaan doonayaa inaan noqdo xigta wadankan Soomaaliya ugu qaalisan Soomaaliya inay noqoto wadamada ugu horumarsan caalamka marka waxaan jeclahay Soomaaliya dhowr iyo 30 sano ay ahayd burbur qabyaalad waxaan doonayaa inaan wadankeena ka saarna qabyaaladda ficilada xun ee dhalinyaradu sameeyaan marka lagu jiro teenagerka ay dhalinyarada yihiin marka aad baan wallahi inagu mahad celinayaa hadaad la shaqeysaan wadankiina meel ka soo saartaan anigu waxaan doonayaa kaliya inaga marrabo inaad wadanka lacag ugu siisaan laakiin siyaasiyiintu waxay u tartamayaan qaar cadaalad ku shaqeynaya qaar cadaalad aan u shaqeynayn hadaynu wax ka taabano kuwa cadaalad u shaqeynaya inay wadankooda horumariyaan bidooniyaan aad baan u mahad celinayaa dad siyaasiyiinta xilka wadanka u haya waxaan leeyahay dadaalkiina juhdigiina dhiigiina wadankiina u daadiya marka aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa fadlan jeceshadan ugu soo biirtay subscribe taa wado gambalka furanay